السلام عليكم سودو هذا صاحب يال ولكن محمد ماري مقال كالكاد كداونيسان وفيسبوك بيج كيغا ماري مالمها waxaan la soconaa waxyaabaha foosha xun ee ka socda baraha bulshada oo lagu la kacay haweenkeena maaha markii koowaad mana noqon doonto markii u dambeysay ilaa ay haweenku iyagu noqdaan kuwa baraarugsan halista ay leedahay dhibaatooyinka noocan oo kale ah fariinta aan rabo inaan u diro hablaheena Soomaaliyeed waxa ay tahay lax walba halkay isdhigtaa lagu qalaa qof walbana halku isdhigaa lagu qiimeeyaa haddii aadan adigu naftaada iyo sharaftaada iyo sumcadaada ilaalin ma jiro qof kale oo ku ilaalin doona ma jiro qof kale oo ku waardiyeyn doona ama mas'uulkaaga noqon doona haddii aad ilaashin weydo sharaftaada iyo karaamadaada muuqaalkayga waxaan rabaa inaan ku soo koobo qiimaha iyo sharafta ay leeyihiin gabdhaheenu iyo sida ay haweenku oo dhan ay ugu yihiin lafdhabarta nolosha aadanaha gaar ahaan bulshadeena islaamka ah ama Soomaalida muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad gaarsiiso walaalaha kale ee Soomaaliyeed ama aad qaybta commentiga motion ugu dhahdo ugu yaraan 3 ilaa 4 gabdhood si ay uga faa'iideystaan fariintan qiimaha badan ma ogtahay qofkii ugu horeeyay ee daga xaramka inuu ahaa haweeney waana haajir ma ogtahay qofkii ugu horeeyay ee rumeeyay rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wa sallam inay ahayd haweeney waana Khadiija bint Khuwaylid ma ogtahay qofkii ugu horeeyay ee dhiigiisa u daadiyay islaamka inay ahayd haweeney waana Sumaya Amaar Aala Yaasir hooyadii ma ogtahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay suurad dhan taas oo loo gaar yeelay dumarka waana suuratu al-nisaa ma ogtahay in khudbatu wadaac uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu yiri dumaro waxaan idin dardaarmayaa khayr uuna ku celceliyay 3 goor ma se ogtahay in rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu yiri qofka Ilaahay siiyay 3 gabdhood oo si wanaagsan u edbiya barana akhlaaqda suuban iyo diinteena inay ka xoreyn doonaan naar ma se ogtahay jannada uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday muuminiinta in la dhigay lugaha hooyooyinka haddaba ragow ogaada dumarku waa noolaha ugu qaalisan ee hadla ugu naxariista badan uguna qalbiga jilicsan dhowr oo kaalmay jeclow oo u qalbi deji xafid oo difaac fariintayda maanta intaas ayay ku kooban tahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddii haweenaydu uu nabigu yiri shanta waqtina tukato bisha rabadaana ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkeegana ay adeecdo 8 albaab ee jannadu ay leedahay ayay ka doonta ka gashaa rasuulku yiri 8 albaab ee jannadu leedahay ayay ka doonta ka gashaa rasuulku yiri